kormeerkii gudoomiyaha howlaha guud iyo guriyeynta gobolka Banaadir aan ku soo marsiinay xarumihii gaadiidka dabdamiska soolarada iyo xaruntii weyneed oo farsamada oo ugu dambeysay oo xero Turkiga oon keenay aad aan ugu faraxsanahay inaan kormeerka gudoomiyaha aan wixii jiray tusino wixii naga baaba'san sidoo horumarka u gaarsiin lahaa wixii noo qurxoon oo noo samaysan oo shaqeynayana oo arki lahaa ayay ahayd kormeerkan waxaana ka rajaynaynaa gudoomiyaha in waxa naga dhiman oo horumarkaana asiga uu noo sameey doono insha Allah taala annagana aan aragtidiisa ku shaqeey doono Ilaahay idinkii wixii jirana aan soo tusinay baahiyadana uu qorsheey doono insha Allah taala waxaan leenahay mudane gudoomiye soo dhawow adiga ayay ku sugay hawshan gobolka Banaadir horumarinteeda iyo isbedelkeeda waxaana rajaynaynaa nin waayo araga oo waqti u soo jooga inaad tahay oo isbedel ka abuuri doonto insha Allah taala wixii aad la kulantay aday ka rabaan horumarkoodii annaguna garbahaaga nahay waa soo arkay maanta gaadiidka kala duwan oo dawladda hoose haddii ay lahayd dabdamiska haddii ay lahayd kuwa bulaacadaha dhuuqo haddii ay lahayd cagafyada iyo baabuurta wax qaada xamuulka iyo waxyaabo kale oo badan basaskii dadweynaha lagu qaadayay markii bananbaxiyaha iyo waxyaabaha looga baahan yahay kale dhammaan waxa ay qabaan kuwana waxay qabaan cilado yar yar kuwana waxay qabaan cilado oo aad maaragtay u baahsan kuwana way shaqeynayaan marka inta shaqeynaysa yar laakiin insha Allah taala waxaan xoog saari doonaa kuwa fadhiyana inay maaragtay shaqeeyaan kuwa lagu shaqeynayana la dayactiro darawalada wadana lagu kontaroolo hadii Ilaahay raali oo ka noqdo waxaan sida aan hore u balan qaadaba markii shalay xilka aan la wareegayay hawl kasto istaagsan waxaan ka sii wadi doonaa meesheeda insha Allah waxaan ku soo kordhin doonaa kuwa cusubna waan keeni doonaa kuwa yaalana hore u sii wadi doonaa insha Allah.